بسم الله الرحمن الرحيم ومركله iyo barnaamijkeena dhaqan eeg ee alaaba aynu ku garfayn jirnay barnaamijyada ku saabsan dhaqanka iyo hidaha Soomaalida barnaamijkan oo ah qaybtii toddobaad ee aynu shabakada caalamiga ah ee College News ka sii deyno sidii caadadayno ahayd waxa halkan diyaar ku ah oo barnaamijkan inala socodsiin doona Abwaan Jaamac Faarax Yuusuf Jaamac ku soo dhawow mahadsanid wariye Saleebaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dhaqan ee qaybtiisii toddobaad ahna qaybtii labaad ee barashada manaafacaadka geela qaybtii ka horeysay waxa aynu kaga soo hadalnay caanaha geela iyo manaafacaadkooda toddobaadkana waxa aynu kaga hadlaynaa hilibka geela dhegeystayaal geela hilibkiisa aad ayuu u badan yahay waxaana marka la aqalo uu hilibka ku deeqaa reero badan oo garangar ah oo meel wada yaala waxaana la yiraahdaa tuluda yani ama neefka geela ah wuxuu ku filan yahay 100 nin marka ay qashaan sidaana waxa aynu ku Soomaaliduna waxa ay ku mahmaahdaa meel hal lagu qalay mana hadal la mana hilib yara kaasoo badana hilibka geela waxa u raaca protein badan waxaana laga helaa tamar aad u badan inay sidaa tahay si aynu wax uga ogaano aan soo qaadano heesta geela loogu heeso marka ay barbaartu waraabinayaan ee tidhaahda ay markaaga iyo caanahaagaan calooshay tegin oo codowaaga iyo ciidan yarida leh waxa kale oo Soomaalidu tidhaahdaa cad iyo caanaba geel baa kugu deeqan geela caanihiisa iyo hilibkiisa qiimaha ay leeyihiin raacatada Soomaaliyeedna ay u lahaayeen isagoo ka hadlaya gabayaagii weynaa ee Gamuuta Cali wuxuu yiri guutooyinku soo habsaday gacalku soo haybshay goortay martidu soo gabtiri heelka gurigaaga oo gacan makhluuq kugu og yahay magacu waa guune oo neef la gowraco cadhiicada ku gaadhaynin geel loo qaliyaa iyo sidkaha looga godolyaaba isaga xilkaa geyn kariyo guurti ku timiye haddaba haddaynu halkaa ku dhaafno hilibka geela waxa kale oo manaafacaadka geela ka mid ah gaadiidka isaga oo ka hadlaya gabayaagii Ismaaciil Xayd aflo wuxuu yiri marka buu adduunyada u yahay macallinow geele magaalada Hargeysa iyo Jigjiga moodka waxa geeya ee adari maarshe ka dhigay muranku waa ceebe waa muruq adoon loo ratiga madaxa weynaaye markale waa kii Cumar Australia lahaa gusaran seeray roobka oo ku simay sudiye gaaroodi saqda dhexe hadii lagu labo socotadii geedi koromada sagaal jiray hadii keena lagu saydo aqalada sintoodii hadii sibirta loo laabo qarqarsiga hadii lagu sakalo sayn cadaha dhaartay heeryada hadii lagu sawiro suumankiya bayda waa waxa Ilaahay sadahay saadu eegtabe kolka samay tiraahdo arxaha sare u qaadaaye suradiyo ubada teedsan iyo saabka iyo haanta sideed loola tiirka iyo qabax iyo saamihii adari sideed loola tiirka iyo qabax iyo saamihii adari intaasoo la wada saaray baa saayid weheshaaye saqiirkii iyo caruurtii guray uga sameeyaan goorta suryada loo furu goortii suryada loo baxsho sare u boodaaye salinkiyo waxa lagu caawiyaa suurada adage meeshiyo salaadii halkii socod u jeedo meeshiyo salaadii halkuu socod u sii jeedo dadka oo surmiyay bay furaan suluf abaareed oo waliba seetada xigaal la isu saaraaye adduun lama sinne geelu waa siinad gooniye dhegeystayaal tudciyadan gabaygii kamid Cumar Australia iyo tudciyadii hore ee kamid gabaygii aflow waxa ay tusinayaan qiimaha uu leeyahay gaadiidku lahaa Soomaalidii hore ee raacatada ahayd maadaama ay ahaayeen dad qorfadega waxa ay ka waramayaan in
ay weelka iyo huga iyo hoyga iyo ubadka iyo dadka wixii jilicsan iyo xoolaha wixii jilicsan ba ay ku qaadan jireen sidaa daraadeed ayay ugu tusaaleynayaan tixaana aynu kor ku soo xusnay qiimaha uu gaadiidku u leeyahay gaadiidkaas oo kamid ah geela waxa kale oo manaafacaadka geela dhageystayaal kamid ah waxa ay ku bixin jireen yaradka waxay kaloo ay ku bixin jireen maalsiinta iyo magta ay iyadana ku bixin jireen waana tii Cambaro Axmed Nuux markii ay Hurre Ibraahim Warsame isu heesayeen ay lahayd nin ragoo la gowracaan gashigiisu ku imana geelo xoolo kuma jiro waxa kale oo heesaha geela dhageystayaal kamida kuwa loogu heeso ta oranaysa nin la gowracay oo gar hawda leh oo gelgelin yaal gashi bixiya dhageystayaal cilmiga geela iyo qiimaha uu leeyahay ma aha mid barnaamij 2 iyo 3 iyo 4 toona lagu soo koobayo laakiin waxa weeye waxaynu ka bixinay tilmaamo guud oo sarka xaadisa maadaama uu qiimaha leeyahayna waxa aynu oran karnaa wixii qiimo iyo muhiimad iyo manaafacaad u lahaa dhibic kamida maynu taaban markaas halkaas ayaynu maanta ku soo gabagabeynaa qiimihii geela toddobaadka xiga waxaynu gudbeen doonaa xoolaha kale ee Soomaaliya raacatada ahayd ay manaafacaadsan jireen siiba ariga toddobaadkan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkiina dhaqan eeg intaynu toddobaad kale mar kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa haddii la yiraahdo sida iyo nabadgelyo